xubinteena ciyaaraha ee maantana waxaan ku eegi doonaa horta kulan weyn baa galabta jira waxa u dhaxeeya kooxaha Manchester City iyo Man United waxaanu ka dhici doonaa garoonka Wembley ee Ingiriiska waxa la kala qaadi doonaa koobka FA Cup-ka England koobkan oo koob aad u weyn koobka labaad ee Premier League soo raacana ah ayaa galabta la kala qaadaya kooxahan Man City iyo Man United waa laba kooxood oo dirisa taariikhdii hore aad waxa u fiicneed kooxda Manchester United intan dambe tan iyo intii waliba Pep Guardiola yimi waxa awood sare leh kooxda Man City oo tababaran wax la sheegay inuu kooxdan wax badan ka bedelay in kooxo badan oo barigo hore baraysteen oo ka reebay oo wax weeye imika taariikhda ugu fiican ee kooxaha waaweyn uu haysto marka galabtana kulanka weyn baa jira haddii ay noogno kulamadii ugu dambeeyay labada kooxood kulmeen Premier League shantii kulan ee u dambeeyay ay ciyaaraan waxa gacanta sare lahayd kooxda Manchester City taas oo ay u fududeed inay ka badiso dhibcahana ka qaadato kooxda Manchester United ay ka qaadato dhibcaha marka kulli de kulanku waa kulan weyn horta xiisu yeelanaya sida la filayo ciyaarna waxa laga yaabaa koobka galabta inaan lagu kala qaadin laakiin Pep Guardiola isagu markasta waxa uu doonayaa koobkan inuu xariisto oo taariikhdiisa iyo sicashada koobabka uu kooxda Manchester City u keenayo uu sii kordhisto sanadkii dhawaato taariikh uu dhigay wuxuu noqday tababarihii ugu horeeyay ee Ingiriiska Premier League jooga ee 4 jeer isku xiga qaaday Premier League marka taariikhdiisu waxay taariikh weyn imikana wuxuu doonayaa FA Cup-kana inuu ku kordhisto koobabka uu kooxdaasi u xereeyay taariikhda Ingiriiska uu sii wato hase yeeshee kulli kulankaas sidaan sheegnay waa kulan adag haddii aynu eegno dhanka dhaawacyada ilaa imika dhaawacyada haddii aan eegno labada kooxood horta Man City waxaa ka maqnaan doona Anderson goolhayaha koowaad ee kooxda inkasta oo goolhayahan kale Australia waxa weeye goolhaya cajiib yahay isla markaasina badbaadino halisa uu sameeyo laakiin horta iyagu waxa ugu muhiimsan dadka maqnaan doona Henderson sidoo kale waxa wararka qaar sheegayaan inay maqnaan doonaan Ake oo difaac uga ciyaara Man City iyo Kovacic labadaas waxa laga yaabaa inay maqnaadaan laakiin ilaa imika rasmi ma Manchester United waxa maqnaan doona sida wararku imika sheegayaan ciyaaryahan Varane oo isaguna dhaawac ku seegi doona kulankan haddii aan eegno waxyaalaha kale ciyaaraha ku saabsan waxa kamid ah waxa la hadlayaa wali tababarayaasha kooxo ka tagi doona kuwa kale tagi doona sidoo kale waan ogeyn sumcad darradii shalay ku dhacday tababarihii kooxda Barcelona sida xun loo eriyay inta heshiis loo soo bandhigay isna ku qancay waliba ku faanay haddana la eriyay tababaro cusub Barcelona magacawday oo faligas la yiraahdo waxa way tababarada kooxda Bayern Munich sidoo kale kooxda Bayern Munich ayaa iyaduna wax la sheegay in heshiis ay la gaadhay shakhsi ah tababaraha kooxda Burnley Vincent Kompany ninkaas oo intii u dambeysay la xiriirinayay inuu kooxda tababaro u noqon doono ayay wararka kale sheegayaan waxa wada hadal u socda labada kooxood ee Burnley iyo Bayern Munich sidii heshiiskan uu noqon lahaa mid miro dhala isla markaasina kooxda Bayern Munich ay tababaraheeda cusub ee kooxda uga dhig lahayd Kompany